عبد الغني ما دركتي مالكي كويدن اركي نين دير بو إلها واي شو أنا كبدا عشا حرنا ها مساسدين كوان isna buur buu xidhnaa dhaadheer markaan habsiinay ma garanaysaa oo ila dheera ku dhunta horta cabdiqani maad aragtay waa indhahayga baan isir barigaas imika laakiin markaas dhinac istaagno waan lacagay adoo ilaa garabkaan ugu dhaca intii romantika igamana dheera igamana gaabno aduu dee nin rag waxa loogu talagalay gabadhu inay intaa laabta ugu dhacdo soo qalbigu u qabo marka ku tiirsato ma garatay romantic iyo jacaylkuna saas ku qurux badan yahay in sujuuda marka laga dhunkanayo ku gaadha afkiisu ma garatay in lagu soo qooraysadana ma fiicno laga gaabnaadana ma fiicno marka horta odagayga ma aragtay waa midaan ku maalay ma fahantay nin raga intuu boqor yahay ilaahay baa boqore ayuu boqor yahay horta halkan ilaahay horta haydayo odagayga midaan jecelahay ma fahantay ibda iyo rafaadna waa isla soo marnay intuu way Allah ku daay aamin tareenkii nagu celiyeysad ku qortay horta tareenkii waan kala dhuumanay way de lacag ma hayna soo maaha waa in isla dhuuntaanaan dhuuntaa okay si aan leedin dareemin lacagtii okay markaan galay kadib iyaan isku meel nimidnay way marka waxaan iska dhignay ninkii lacag lay markuu soo ag maray lacagta ururinayay qaar hurdaba waan iska dhignay isna dhankaas igaga sixdana dhankaas kaga sixday dhowr jeer markuu nala hadlay waba quurinayaa baan oo iska dhaqaaqay oo iska dhaqaaqay ma dad quurinayo ka cin kara geeya caawa oo waliba wuxuu sonay waa yar yar way soo daaleen duruufna way iga muuqatay horta siiba aniga isagoo soo yar cascasaaye anu degay dhanba ka soo booday soo maaha siiga soo galgashay marka de digintaan hayo dhar yar iska uskagana waan xidhnaa maadaama de xooshin meelna aan ku jiray de maxaa la dhihi jiray aan ku jiray gaala kaama de kaamkina dharna ay jirin oo de la iska uskagahaa maadaama aan ku cusbaan waxa la igu dharkan kuu doonana kuu soo iibinaynaa de ninkan ayaa cadda aniga isagaan de besanka ninay meelo cadday meeli ka madow marka isagaan usoo orday marka alxamdulillah hada ilaahay si nabad nagu kulmiyey safarkiina soo raacna tareenka soo raacday markaas adigu totally meeshii aad joogtay ka soo baxsatay rabti ani waxa ii darnaa inaan qof Soomaaliya la kulmo meeshuu joogay isaga ugu timaado Soomaali baa ii darnaa markii hore inaan la kulmo way Soomaali ma beergo bildan Soomaali ma arag marka waan waalan gaaray mobile ma haysan mobilka asaga kala heli jiro kuwa meesha ay leeyihiin baan ku oran jiray hooyadii baan wacana isaga wici jira marka ani waxa ii darnaa inaan qof de Soomaali oo ku tiirsanaado inaan helo maadaama dumar ahaan de wax kasta u baylahana de ilaahay nasiibkaygu isagu igu hagaajiyay qof kale aduu hala wiil goyn lahaa garanaysa marka ani waxaan kana baqan jiray inaan de aan cilla ku dhaco hadhowda sida hablaha loo silciyo Yurub la ii silciyo maadaama aan yarahay marka wakaade tareenkii halkoo idin keena tareentii wuxuuna keenay magaalo Balonia la dhaho magaaladan wiilka ku kulmay doono wiilka iga soo raacay cabdiqanigii kula inanka mar walba waan xusaawayo maxay toolay waa qofkii kaliya yani guurkayga aan ku sheegan karo in moogtay uu socdi la galay hayaanka habeennimadii markaan magaaladii aanu nimin isagoo ku dhiisay isku marun baan ahayn badaan isla marnayo maxay toolay isagoo ku dhiisay guri ma haysan marka guri ma haysan isagu marka wuxuu nageeyay meel kharaabadu nageeyay oo meel kharaabada oo la seexdo oo de adigu sidaan ahayn chachaban wali way halkii baanu tagnay halkii baanu iska wada seexanay habeennimadii kadib subaxnimadii aan ka soo jarmaadnay markaan saa u soo kacnay waxaan u sii jahaysanay magaaladan deganaa adoo aad ka timid anu aan ka yimid waa laba cisho ii soo socday marka halkaas adigu tareenkii baan haddana de sideedii baanu ku soo wadnay ilaahay ma dadkii naga indhasaabiyey marka intaanan tareenkii aanu gaadhin waxaan ugu dhacday inaan bas anagoo tareenkii usii saaran inuu nagu arko ninka dadka maaragtay qanaaxa dadka qanaaxa anu markiiba ishaan qac ku siiyey kadib waxaan ku yidhi warna dejiya ninkuu soo galay ninkii bahalka dadka qanaaxa waa bas
ninkii wuxuu yidhi markaa sharciyadiina keena anu markaa sharci waan haystay wiilkan kalena magaalada abu degan laakiin nasteexoda iyadu sharci ma haysanaha marka waxaan anu haddaad adigu dhiibto meeshana fasax aanan kaga iman haddii dee aad dhiibto iyadana khasab waa la weydiinayaa kadib waa la kala celinayaa ma haysanaan ku yidhi marka adigana kaaga wada waan dafir anuguna haddaan isdhiibaynaa dad cusub baan nahay baan ku yidhi hadda waxaan u soconaa xarunta booliskan ku yidhi ninkii ina mariyuu yidhi uu diiday amba sharciga keena ama waa idin kaxeenaya meesha markaa waa xalqadii ilaahay marso dadku waa meel wada jaama ummadii oo dhan baa maraysa ninkii uu nagu goosa adkaaday waxaan yidhi nasteexoy waa inaad orodnaa lugaha wax ka dayay war adiguna waa inaad orataa askartii waa wacaya wac baan ku yidhi markuu wacay orod baanu dhagac ka siinaa saddexdeediiba dadkii baanu dhex yaacnay dee tareenkii baanu wiilkaa magaalada noo geeyay tareenkii buu na geeyey sidii baan markaa aan kusii safarnay magaaladii halkii aan habeennimadii aan usii seexday baan usii safarnay magaalada torina la dhahaa halkaa baanu ka bedelanay toos habeennimaanu galnay magaaladii intii aad markaasi aad jidka ku jirtaan xagee ka helayseen waxa cuntaan iyo waxa cabtaan wallaahi de waxaan cabno koley dadkaasna dee wax way noo keenkeenayeenoo guryahooda way nooga soo dhiibayeen walow aanay awoodayn dee inay dadka aan markaa aqaano gaashaa ku dilaysa anu de maadaaman xishoonayo ninkana ku cusbahay waxdaarbasaa u adkaystaayo ayaan lagaa dareemi haddana caloosheeda waa laysku dhexlaynayaa gaajada aawadeed dagaalka eriya esiya ka socda marka adigu dee anigu sidii hore habeeniya maalin baan sii socday aniga halkaas seexday iyaduna dee waataan habeenkaan halkaa akhraabada seexanay iyo maalinkaanu soo soconay sidiiba marka aan magaaladeedii ku tegay inanbaa isaguna habeenkii koobaadna soo dhaweeyey oo dee dhuumasho aanu ku galnay meeshiis subaxi baanu ka jarmaadnay dadkii markaa qoladii haysay baan u tegay adoo nasteexana wata anoo nasteexana wata aan ku yidhi dawaaqtan gabadhan u cararay gabadheeda iyagu bay ogeen markaa iyagoon dulgeeyoon marka dulgeysa waayo dee familkii wixii ma ka dhamaysanay iyagana dee waxaan ku yidhi waa kan gabadhaydii familka intaydan eeg markana waa markana tareenka wada raacdeen ee wada silicdeen iyadana meesheedii ay kasoo baxsatay familkana dee dhan baan ka wadnay familkana dhinac baa kala hadlaysay kowdii hore intii aniga meesheedaba kasoo bixin intaana meesha ay kasoo bixin iga dabagee marka familka sidii aad ula hadasheen iyo sidii ay suukan ogolaadeen iyo sidii wallaahi familka koley mar walbo aad moogtahay aad wax kaa daaweyn aad sameynaysa khasab caqabado badan way kaa hor imanayaan